بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka hore aad iyo aad ku hambaleynayaa ciidanka dowladda shaqada culus ee khatarta leh ee maalmo dagaalka jooga dabka la dagaalamaysan ee qaranka waa sabab ku hambaleynayaa qarankuna waa yuroogi wixii ka dhimanna waa la gaari doonaa waxaan si gaar ah u hambaleynayaa oo loogu mahadnaqayaa ummadda oo dhan oo ducaynaysa taliyihiina oo ah nin hal abuur leh hawshan isagu bilaabay iyadoo oon jirin dabdabisba jirin ayuu daacadda ka bilaabay inuu ka hadlo dab baa loo baahan yahay war wax dabkii uu sharxay malaa sanad buu waday inuu sharxo idhaahdo hawshaasaynu u baahannahay markii dambena wuxuu ka bilaabay cidla maantana wuxuu gaadhay in uu gobollada oo dhan iyo magaalooyinka waaweyn ee baacmishirkaa gaadho runtii hawshaas waa hal abuurnimada qofka kama soo hadho horumarka iyo waxqabadku qofka hogaamiyaha hal abuurkiisa qoladan ciyaartooyga kubaddu waxay dhahdaan hal abuurka annagaa u badina taybu axmed ayuu muujinaya ciyaartooy buu ahaa qaranka u ciyaara gobollada u ciyaaro qaranka oo dhan buu ciyaara markaa dhinka kubadda ciyaara dee waa inuu deg deg u fikiraa deg deg qofka ordaya labada sugulood ta laga soo laagaya waa inuu gartaa halkay maraysana waa inuu gartaa waa inaanu daalin muruqa hadduu goolkii baa dhalanaya waa inuu xajiyaa isagoo dhaawaca marka hawlo badan oo mar quradooda qabtaa buu sameeyaa ciyaartooygu marka waxaan filayaa idinkuna inaad ciyaartooy midhantihiin oo waddadiisa mari doontaan oo mustaqbalka dalka waddada taliyiin wada mari doontaan rag iyo dumarba ta kale nidaamka uu samaystay iyo isgaarsiinta iyo operation roomka si uu samaystayna waxaa ka muuqata aqoon waa bilow hawshan debdebisku iyo qarankan u dhisaynaaba waxaa noqoteen dafcaddii ugu horreysay ee lagu aasaasay debdebiska dhammaantiin wakti fog hamoodina waadho waa ka sheekayn doontaan markii la aasaasayey iyo dad badanoo tiaadaan imika halkan jooga allah u naxariisto la odhan doono wax weyn hamoodina 10 sano 15 sano ka bacdi dhalinyaraati 20 sano dhalinyaraati hawsh markaa adiga ku soo baxsanaysa axmed 20 sano dama sii shaqayn karaayo ragga dhaxal lahabaati hawsha qabanaa ragga doon markaa waxaan ka rajaynayaa inaa hal abuurnimada qaadataan in wadannimada xajisaan inaa dhistaan debdemis dalka oo dhan anfici kara aqoontiina kordhisaan dhibaatooyinka badan ee la deriska iyo duruufaha adiga ku jirtaan deeta waxbaynu dhisaynaa ciddaynu wax ka dhisaynaa innagaa isku kalsoon markaa dhibaatooyinka badaneed ka yimaada waa u sabraynaa intii la qaban karana u malayn maayo ciidan ama department shacbigu maanta uga duca badan yahay iyo dowladba oo laga jecel yeelu jiro wixii idinka maqanin waa waxaanu gaari weynay dadaalla waa laydin kordhinaya waxaan doonayaa inaan mar labaad ku celiyo inaad ballaadhisaan hawsha aad qabataan dadka wacyigelisaan dhalinyaro waxbartaan idinku isku duubnaataan hormood noqotaan waayo waa ciidamada kale o dhan bay soo dhisnaayo waa la yaqaanaa ilaa ingiriiskii booliiska waa la yaqaanaa milatariga waa la yaqaanaa qolada asluubta waa la yaqaanaa laakiin debdemis duuban oo gaadiida oo shaqaynaya bulshadeena waa ku inta dibadaad tagto ma yaqaan markaa dadkii ma yaqaan ninkii xitaa markaad shaqaynaysaan waa ladila dagaalamaya dariiqaa la idinka xidhaya xitaa dhaawiciina markuu joogo dadkii ma soo kulama qabanayaan waxay maanta in wacyi badan la siiyo waa hawl iyadana iyo taalla aad iyo aad baan isku mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa dhibaarmanada la shaqeeya dibadamiska oo koow ka yahay buluuska iyo taliyahooda inay gacantaa wanaagsan iyagoo jirkaa ku shaqeeya waa iyaga xooggeedan caawinaya waxaa kaloo dhan mahadnaqaynaa dowladda hoose oo qaybteedii si fiican uga soo baxday oo hawsha xooggeeda ku dhacdo hawl badan baa ku taala nimanka aad ugu dadaalo u kordhi ya aad waa ciidan ka warhayn shaqada qof ay taabanayso baa garan karaa aad iyo aad baan isku mahadnaqayaa waa idinku hambaleynaynaa waa idin ducaynaynaa ciidankii kora ee xoogaysta ee aanay ka lumin kartidaa iyo awooddaas marka odaygiinu daalo